aad iyo aad soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada aad baad mahadsantihiin waxa weeye waxa dhacay waxaa la soo diray virus baa la soo diray runtii oo waxa weeye daaqada lagaga tuuray marka soo dhawaada dhasan maanta ma daalayno insha allah bidmillaahi kariim ma daalayno inta ay nafteenu ugu jirto wayna halgamaynaa insha allah bidmillaahi kariim soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada virus baa la soo diray oo waxa weeye maxaa kule ina kala jaray marka soo dhawaada insha allah bidmillaahi kariim sii shaar garaya barnaamijka walaalayaal waxaanu nidhi walaal hogaan xumada waxa weeye saddexda dhardhaar iyo maxaa ku leedahay gardaamada shacabka puntland ayaynu wadnay insha allah bidmillaahi kariim marka waxa weeye halkii baynu ka ambaqaadaynaa biidni illaahi kariim walaalayaal waxaa aad iyo aad aynu u arkaynay social media aynu hadda uga arkaynay ayaamaha kan waxa weeye qayladhaanta waxa weeye maxaa ku dhaha shacabka soomaaliyeed salaadiinta waxgaradka waxa weeye maxaa ku dhahday ragga dumarka dhammaantoodba maxamed cumar soo dhawow maxamed cumar soo dhawow kuma arka saaxib ninka khadka iga saar maxamed cumar baa miya ma garanayo marka soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada waxaan doonaynaa inaynu waxa weye maxaa ku dhahda runtii aynu ma aha arrinteenu inaynu cid dhaleecaynayno laakiin waxa weeye arrinteenu waa toosin weeye waxa weye ansur akhaaka dhaaliman oo madluuman walaalka waxa weye maxaa ku dhahda u heeli haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba waxaynu arkaynaa shacabka puntland waxa weeye inay yihiin shacab maxaa ku dhahday saciimiina shacab sharaf badan shacab waxa weeye maxaa ku dhahday qarannimo jecel shacab gobonnimo jecel shacab waxa weeye maxaa ku dhahday dowladda hadda jirta aad iyo aad u taageersan haddana waxaan arkaynaa madaxdii hogaaminaysay inay yihiin cags waxa weeye aad magaranaysaa maxaa ku dhahday dhinaca kale ay yihiin mar walba ay kasoo horjeedaan waxa weeye maxaa ku dhahday qarannimadii soomaaliyeed waa ay dareenka shacabkooda inaanay ku shaqaynayn laakiin ay iyagu ku shaqaynayaan rabitaankaas oo runtii waxa weye maxaa ku dhaha iyaga laftoodana sharaf dhac ku ah ummadda waxa weeye waa soo dhow kuma soo qabanaya saaxib waa ninkii meesha iga saaray salaamu calaykum no raallihaw barasho wanaagsan saaxib cabdullaahi ciise barasho wanaagsan aad baad umahadsan tahay of course walaalo of course waan taageerayaa haa anigu wixii wanaagsan baan taageeraa runtii waxa weeye waan taageerayaa sidaan u taageeraya maan u taageeraya because waxaan rabaa anigu dowladnimo anigu qof ma doonayo run baan kuu sheegayaa waxaan rabaa waxa weeye dowladnimo anigu cabdiqaasim baan soo taageeray waxaan soo taageeray maxkamadihii waxaan soo taageeray mararka qaarkood xilliyada qaarkood cabdullaahi yuusuf waxaan soo taageeray shariif sheekh axmed waxaan soo taageeray xasan sheekh waxaan soo taageeray anigu waxaan rabaa isbeddel baan rabaa laakiin anigu qof ma doonayo saaxiib waxaan doonayaa anigu waxa weeye dalkaygii baan ka tegey waxaan tegey caalamka daafaha wadamo kale baan tegey wadamadaa kale aan ka helay nolol caafimaad waxa weye maxaa ku dhahday shaqo wax walba waxa weye waxaan rabaa dadkaygu inay ku noolaadaan cis iyo magaranaysaa sharaf inay ku noolaadaan waxaan rabaa dadkayga inuu hogaamiyo wanaagsan oo waxa weeye maxaa kule u adeegaya mujtamaca waxa weeye soomaaliyeed taa ayaan doonayaa hadduu dani noqdo waan taageeraya maxamed hadduu dani noqdo waan taageeraya hadduu waxa weeye maxaa ku dhahday gaas noqdo waan taageeri lahaa hadduu noqdo adiga hadduu noqdo waan taageeraya anigu isbeddel baan rabaa waxaan rabaa ummad wanaagsan oo soomaaliyeed oo waxa weeye sharaf iyo karaamo leh oo waxyaabaha ilaahay siiyey nimcooyinka ilaahay ku galladaystay waxa weeye maxaa kule ka faa'iidaysanaya oo dhan wada jeeda oo isjecel oo walaala ah oo ilaahay subxaana watacaala wada caabudaya oo waxa weeye maxaa kule awaamirta rabbigood waxa weeye qaadanaya oo wada magaranaysaa fulinaya taa ayaan rabaa walaal taa ayaan rabaa laakiin waxaan ka arkaa markaa hadda maalinba qofka jooga ayaan waxaan ka taageerayaa inta uu waxa weeye ku wanaagsanay sababtu tahay wadamada reer galbeedka ee aynu u yaacnay ee aynu la noolahay kuma ay waxa weeye maxaa ku dhahday maalin iyo bil iyo maxaa ku dhahday waa ti mahmaadu ahayd rooma waxa weeye maxaa ku dhahday maalin laguma dhisin iyo bil toona rooma kumayaal sano ayaa la soo dhisayey sidaa darteed dad yowga kale ee waxa weeye wadamada kalena iyagana waxaa la soo dhisayey kumayaal sano boqolaal sano ayaa la soo dhisayey boqolaalkaas sano ayaa la soo dhiyay ayaan waxaan rabnaa wax maalin walba annaga wax noo keena waxaan maalin walba wax ka dhaxalo walow kaana haba yaraado taakaba ha noqdee wax ummadda soomaalida waxay ka faa'iido oo ay ka dhaxasho ayaan doonaynaa ma doonayno nin doonaya inuu ummadda soomaalida carqaladayo waxaan uga soo horjeednaa madaxda hadda puntland iyo kuwa jubbaland iyo kuwa kastoo meelaha cid kasta oo mucaarada oo ummadda soomaaliyeed aan wax dana u hayn waxaan uga soo horjeednaa waxay dhuminayaan waqtiga ummadda soomaaliyeed waxay ku ciyaarayaan cimriga ummadda soomaaliyeed waxay cadow ku yihiin waxa weeye naftooda ayay cadow ku yihiin
naftooda ayay cadow ku yihiin baladofers marka waxaan rabaa anigu waxa weeye ma ihi qof maxaa ku dhaha weji caabud ah ama ay ka tahay taageeradu qof jeclaysi laakiin waxaan doonayaa qaran qurux badan oo wada qaada dadka Soomaaliyeed qaran qurux badan oo dadka Soomaaliyeed qaada marka waxaan ogahay laakiin wadada loo maraya inay tahay wada adag wadada loo maraya inay tahay wada adag oo qodxan badan leh oo waxa weeye maxaa ku laadayay magaranaysaa mararka qaarkood lagu dhimanayo mararka qaarkood lagu dhaawacmayo mararka qaarkood waxa weeye maxaa ku laadaa lagu caayayo mararka qaarkood lagu nacayo waxa weeye waan ogahay sababtoo waxa weeye maxaa ku laaday ambiyadii Ilaahay doortay ayaa la caayay oo lagu caayay waxyiga Ilaahay soo dhiibay ayaa lagu caayay oo la waalan yihiin waa beelowyaal waa falalowyaal waa kan waa kidhish marka waxa weeye maxaa ku raadayay waa is normal in la maago madaxda in la caayo oo la yiraahdo waxa weeye way qaldan yihiin waxa weeye because waxa weeye in badan oo kamid ah dadku ma garanayaan in badan oo kamid ah ma ay fahmayaan meesha waxa weeye maxaa ku dhaw waxan isbedelku inuu xanuun badan yahay ma fahmayaan laakiin insha Allah bismillaahir kariim marka uu geelo dhalo oo roobku noo doo oo waxa weeye macaadinta la soo saaro oo badroolka la soo magarasa uu soo baxo oo beeraha la falo oo xooluhu inoo dhalaan marka ayaa la garan doonaa xilligaas weeye xilliga dadka Soomaaliyeed ay wada garan doonaan oo oran doonaan waxa weeye Allah ilaahay waxa weeye saxbay ahaa Allah ilaahay madaxdii saxbay ahaayeen laakiin hadda marka ay maxaa ku raday u baahan tahay in la shaqeeyo in la isgarab taago in waxa weeye maxaa ku raday juudi iyo maxaa ku raday maal iyo xoolaba lagu bixiyo qarannimada in badan oo kamidi waxay ku oranayaan waa la qabiil ama waxa weeye maxaa ku raday waa la qoys ama lacag baa la siiyay ama maxaa ku raday waa istusus oo waxa weeye magac buu doonaya whatever iyo wax kale oo badan baa la oranaya aanu soo noqdo barnaamijkeeni walaalayaal barnaamijkeeni ahaa Puntland hogaan xumada maxaa ku lahaa saddexda dharaar waxa ayaan daraa walaalayaal waxa aad ayaan daraa saddex madaxweyne waxa weeye maxaa ku lahaa isu soo dabahayay oo saddexduba waxa weeye maxaa ku lahaa mid wax bedelay isbedel keenay mid in yar dhaama aanu jirin baladofers waa Faroole waa Cabdi Wali Gaas waa ninkala yaro Saciid Cabdilaahi Dano hadda jooga what's going on maxaa ka qaldan nimanka war maxaa ka qaldan nimanka waa cajiibe baladofers waxa weeye maxaa ku raada waa inaynu isweydiino walaalayaal Maxamed Cumar Soodow walaal Maxamed Cumar Soodow waxa ka qaldan waxa weeye maxaa ku waxay doonayaan magac waxay doonayaan maal waxa ka qaldan waxa ay doonayaan personal interest bay doonayaan wax iyaga u gaar bay doonayaan dad danka ma laha oo dad danka ma laha oo diin dadka ma laha oo sharaf magaranaysa danka ma laha waxa weeye laakiin waxay doonayaan maxaan hadda helaa maxaa aniga hadda ii faa'iidaa hadda maxaa soo galaya today maxaa soo galaya way waxa ay doonayaan waxa dadku ay u garan lahayn waxaan isbedelka looga laayahay waxa weeye ay u kala duwan magaranaysa maxaa ku raada ay u kala duwanaan laayeen I think inay saas tahay laakiin waxaan ka dhageysan doonaa dadka reer Puntland ayaan ka dhageysan doonaa insha Allah bismillaahir kariim oo aan ka maqli doonaa waynagii maqlaynay suldaankii waynagii maqlaynay waxa weeye wiilkii dhalinyarada ee garow joogay marka waxa weeye waxa jooga dad qurba jooga walaalayaal oo indhala oo dhagala oo waxa weeye u taageeraya waxa weeye maxaa ku dhahday waa isku degaan baanu nahay that's it wax kale ma jiraan waxa isku degaan baanu nahay war yaa walaal gacaliye war ilaahay ka cabso oo deegaanka waadigan hadda ka soo lafahaaga kaba soo guuray meesha oo ummad kala deegaan la tahay war ummadda wax ka qaado wax ka baro war ummadda wax ka baro oo wax ka qaado waxaan leenahay waa wax la yaab leh waa wax runtii la yaab leh walaalayaal shargalaya barnaamijka gaarsiiya waxa weeye qul xaq walow kaana mur annaga waxa weeye waxaana la yiri warka cad runta cadeeya runtaan cadeynayna waxa weeye maxaa ku raana mar dambe kaar dambe ummadda Soomaaliyeed lama marsanayo insha Allah bismillaahir kariim kaar been oo dambe oo ummadda Soomaaliyeed la marsanaya ma uu jiro waxa weeye ummadda Soomaaliyeed way baraarugtay ummadda Soomaaliyeed way aragtay wixii ay qabyaalada ka dhaxashay ummadda Soomaaliyeed waxa weeye wixii ay qof jeclaysiga ka dhaxashay way arkeen ummadda Soomaaliyeed maanta waxay rabaan inay walaalnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo wanaagoodii ay soo ceshadaan cid allaale cidii aan ka shaqeynayno waxa weeye arintaasna waxa weeye inay iska leexiyaan oo ay maxaa ku raada wadada ka magaranaysa maxaa ku ka turan waxaan u habalyeynaya walaalayaal waxaan u habalyeynayna oo fariintan aynu u dirayno oo rabnay barnaamijka caawa inaan la wadaagno walaal waxa weeye maxaa ku raada kamid ah walaalaha odayada waxa weeye magaranaysa wax garadka magaranaysa gobolka bari
oo runtii xogo badan ina siin lahaa dabcan cilad farsamaa ku dhacday khadka wuu inoo soo galay wuu ka go-ay waxa weye laynkii waxa weye markaa waxa weye waan rajaynaynaa inuu soo noqon doono haddii allah awoodale ogolaado haddii aan helana waa okay haddii kale waxa weeye inagaa ku filan sida aynu messageka u diri jiray ayaan messajyada u diraynaa waxaan rabnaa dadka shacabka waxaan aan u hambalyeynaya oo aan aad iyo aad maxaa ku dhahay aan u taageeraya dhaqdhaqaaqa isbedel doonka ee ka socda waxa weeye maxaa ku dhahday dhammaan gobolka bari gobolka mudug waynu ogeyn gaalkacyo waynu aragnay dhalinyaradii waa istaanbay diyaar bay yihiin waxay rabaan in maxaa ku dhahday dowladooda ay magaraysaa fariin u dirto oo ay tirahdo waxaasaa laydinka rabaa laakiin waxaan rabnaa gobolka bari iyo gobolka waxa weye maxaa ku dhahday nugaal iyo gobolka karkaar iyo gobolada kale ee la midka waxa weeye maxaa ku dhahday banderebeyla iyo bander qaasim iyo maxaa ku dhahday dhulka ayaynu rabnaa inay dareenku u gaadho inay toosaan inay kacaan inay dhul waxa la guranaya waa hantidoodii hadda suldaanku waxay ahayd wuxuu weydiiyey kii airportkii garowe lama qaadanayo kan waxa weeye maxaa ku dhahay gaalkacyo lama qaadanayo imaaraadka lama siinin waay loo siinayaa kan boosaaso waay loo siinayaa maxjarka waxa weeye maxaa ku dhahday ku yaala maxaa ku dhahay carmo waay loo bixinayaa deke ishii keliyahayd dadku ku noolaayeen waxaan leenahay sii gudbiya barnaamijka sii gudbiya insha allah bidmillahi kariim idinkoo mahadsan meesha ay fadhfadhinina waxaan leenahay insha allah bidmillahi kariim guushu way dhowdahay ninka la yaro Saciid Cabdilaahi Dani iyo maxaa ku dhahday dabcan ninka la yiraahdo maxaa ku dhahday Faroole waxa weeye hadda we know it waxaynu ognahay inay isku siyaasad yihiin inay ay ku heshiis ku yihiin inay qaranka Soomaaliyeed dabar jabiyaan inay ummadda Soomaaliyeed lugooyaan inay reer Puntland god inay ku ridaan inay ka shaqeynayaan waxa weeye Puntland baa sheegtay ummadda muslimiinta baa sheegtay ummadda Soomaaliyeed baa sheegtay waxa weeye waxaan leenahay insha allah bidmillahi karim ma soconayso insha allah ma soconayso magrigiina iyo maxaa ku dhahday farxaan soo dhawow mar kale dagaal baa inagu socda dabcan dagaalku waxa weeye maxaa ku dhahday waa ma la ogola in uu dadku ay dareenkooda ay dhiibtaan ma la ogola waxa weeye maxaa ku dhahday waxa la rabaa in dadka la caburiyo gudahana way ka jirtaa magaranaysaa maxaa ku dhahay hawadana waxaa la rabaa in mar kasta waxa weye maxaa ku dhahay dadka wax beena loo sheego qof kasta oo run sheegaba in khadka laga saaro oo aan loo ogolaan fursad uu ka hadlo ayaa waxa weye maxaa weeye waxa meesha jira marka soo dhawow aad iyo aad baan kusoo dhawaynaya mar kale oo soo qabanaya haddaad diyaar u tahay Farxaan oo Xaraare walaalayaal Farxaan Xaraare waad maqlayseen waa wiil yar oo dhalinyaro ah waad maqlayseen wuxuu yiri hadday ugu daran tahay wax saddexda sida aynu u hadlaynay wax isbedela ma jiraan haba yaraatee haddayna ugu daran tahay oo ay waxa weeye maxaa ku dhahay xaaladdu ugu dhib badan tahay waxa weeye waxay magaranaysaa maxaa ku dhahday waxaana ninkan wax ka xunayna ma soo marin qof kasta oo reer Puntland isaasu ku leeyahay ummadda Soomaaliyeedna way aragtaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaana way aragtaa inta wadaniyiinta ee dalkooda jecel ee dadkooda jecel ee doonaya dalkan inuu soo noqdo way arkaan baladofirso reer Puntland way xaqiijiyeen oo way qireen dhalinyaro waayeel culimo waxa weeye maxaa ku dhahday rag dumar dhammaantoodba way xaqiijiyeen inaanu waxa weeye ninka la yaro Saciid Cabdilaahi Dani inuu yahay waxa weeye maxaa ku dhahday inuu Puntland gaday totally Puntland inuu wada gaday oo u wareejiyay waxaan leenahay insha allah bidmillahi kariim Puntland sidaa kuma gadmayso waxaan digniin u dirayaa beelaha gobolka bari dega oo la doonayo hadda magaranaysaa maxaa ku dhahay uu ka socdo waxa weeye dhex magaranaysaa maxaa ku dhahday kacdoonka shacabka waxa weeye maxaa ku dhahay hadda u diyaar garoobaya magaranaysaa isu diyaarinaya inay waxa weeye kacdoon shacab ay sameeyaan oo aynu odayadii aynu dhageysanaynay waxa weeye mowqifkooda aynu maqalay warka cad sida fariinta cad u diray waxa weeye imaaraadku inuu ka baxo waxa weeye geeyigan iyo maxaa ku dhahay qaar kale oo badan oo aynu ka warsugayno insha allah bidmillahi kariim waxa weeye waxa ay isku dayayaan rejiimkan meesha jooga inuu waxa weeye kala qaybiyo waxa weeye maxaa ku dhahay dadkaas inuu kala qaybiyo oo iyaga iska horgeeyo sidii marar badan oo hore dhacday waxaan leeyahay aad iyo aad baynu nasiib darannahay reer Puntland waana nasiib fiicannahay runtii waana nasiib fiicannahay oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadaha waxa weeye maxaa ku dhahday dad muslimiina oo ahlu sunna oo walaala oo qaniya ayaa ilaahay naga dhigay waynu nasiib darannahayo waxa weeye waxa laynagu imtixaamay hogaamiyaal xunxun ayaa laynagu imtixaamay waa inaan hogaamiyayaasha xunxun aan iska qabanin wayna buuxaan hogaamiyayaashii wanaagsanaa way buuxaan baladofurs kuwa ehludiina baa buuxa kuwa aqoon kale oo maadiya baa buuxa kuwa wadaniyiina baa buuxa laakiin
shaydaan ayaa waxa weeye maxaa ku dhahday waa wax la yaab leh oo la isweydiin karo waxaan rabay suldaanka iyo maxaa ku dhahday wiilka magaranaysa xaraareba inaan weydiiyo aaway waxa weeye maxaa ku dhahday dadkii waxa weeye soo doortay xildhibaanadii waxa weeye meesha waxa weeye maxaa ku dhahday soo doortay deni maxay odayadii soo doortay ay ula xisaabtami waayeen maxay odayadii waxa weeye soo doortay oo waxa weeye baarlamaanka magaranaysa soo xulay maxay wiilashoodii ay iyagu ummadda u soo xuleen maxay ula xisaabtami laayeen maxay u odhan laayihiin war waxaan idin maanu soo dirin annagu war waxaan idin soo diray inaad waxa weeye ummadda u adeegtaan inaad ummadda dulmiga ka qabataan inaad waxa wanaagsan taageertaan inaad waxa xun diidaan inaad waxa weeye dalka idinka waxa weeye nidaam iyo maxaa ku nidaam sharciga dalka inaad ilaalisaan maxay u odhan laayihiin waa yaab maxay u odhan laayihiin walaalayaal waa wax isweydiin leh waa wax runtii isweydiin leh oo ay tahay inaynu isweydiino waxaan eegayaa fahimo iyo baan eegayaa walaa aan eego dadka aan siiyo insha allah bidnillahi kariim akhyaartii qiimaha badnayd aan siiyo السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاهمة سوري ولا فاهمة ما يمرشا هالو ما يمرشا فاهمة و ما ويجا جوجايا وحير ويجا جوجايا بلا aad way buuqdayba mar kale aan soo celiyo mar kale okay aad iyadana ma la soo galay waa yaabe assalaamu calaykum هلو السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانكم مقلاي كسعة. شكري سودو ولا شكري. ما انتو حكالي سو مالينا. وحكالي يا بودلان. وحكالي سو مالينا رير بودلان. No of course رير بودلان بنكالي يا. موضوع مركب waa airportkii waxa weeye maxaa kula dekadii waa maxjarkii waa waxa weeye su-aasha kale waxa weeye su-aal baan isweydiinaynay ah maxay reer Puntland waxa weeye saddex maxaa madax xumadu Soomaaliya ee muruga weeyaane maxaa waxa weeye saddex madax ba waxa weeye maxaa saddex madaxweyne ayaa ama saddex mas'uul ayaa isu soo bedelay muddo 10 sano iyo dheeraada adigu 12 sano baan idhaahno hadda wax isbedelana ma jiraan oo waxa weeye mid waa jugjug meeshaada joog weeye maxaa sabab u ah arintaas baad isleedahay Fahima horta waxa sabab u ah ani waxaan dhihi lahaa marka shacabka reer Puntland Soomaaliya horta in kasta ayna fakarin ma fakaraan dadka qabiil ku taageeraan abkood midda labaad ma muxuu ahaa shacab lahaan هذا واحد اسكال odayaasha reer Puntland odayaasha reer Puntland shalay ninkii ay u keeneen muxuu ahaa xildhibaannimo ee beeshiisa oo ka soo xulay ila wuxuu beelaa lagu qaybsaday oo ka soo xulay nin walba waxa la rabay nin u tababaran inuu ka oo ka shaqeyn kara shacabka soo isku keeni lahaa oo ka shaqeyn kara danaha wadanka danaha gobolka nin wax tara nin isbitaal dhisa nin ceelal qoda jidad dhisa nin siyaadin karo yani ayaga laga rabay shalay dadka ay ayaga baarlamaanka u soo doorteen marka ugu horeysa baarlamaanka baarlamaankii wuxuu ka jireeyaa oo qaashi nimankii ahaa muxuu ahay odayaasha ahaa ee gobolka marka hore waa nimanka gobolka waa niman ayaga ka musuqmaasuqa ka fog waa inay soo xushaan waa inay yihiin odayaasha naftirkooda odayaal musuqmaasuqa ka
وعليكم السلام كينا سودو shilin سعد ba aan jeebkooda ku كسعة ridin كسعة ولا وين كسعة marka ugu horeysa waa taas shacabka waa markaas yihiin dad wanaagsan ay soo xulayaan dadka wanaagsan waxay noqonayaan dad muwaadiniin oo wadan u shaqeeya ayagana ma qaadanayaan ninka ay dooranayaan ay ka dhiganayaan gobortooraha ay ka dhigayaan ما شاء الله ما شاء الله marka laakiin haddii fidnada waxaan dhihi lahaa shacabka reer Puntland intay ninkan iska casilaan way dhulkii gatay airportkii haddana bixiyey wuxuu ku daray inuu فهمي ولي عدكو dowladda federaalka uu ka soo horjeedo فهمي ولي dheeraat oo soo noqday asagii meel فهمي ولي عدكو ما في عنا ولا لا ولي عدكو ما في عنا معنا markii okay hayo waa codka fiicnay waxa soo biima aqaana marka وقوقايا ولا شيء وقوقايا okay hayo whatsapp ma laga soo wici karaa واتسابك ما waa kan aan ku hadlayo walaal waa kan ku hadlayo whatsappku okay hayo waa salaam calaykum خير baan ku rajaynaya wala shay وصوعنا وكسو مركان سو gabagabeynaya barnaamijka insha Allah bismillaah karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كينان وهنا صالح سو dhawaada dhamaantiinba dabcan magaca oo diirada waxaynu saaraynay waynaga kala go'ay barnaamijku waxa weey maxaa kula Puntland ayaynu diirada saaraynay cabashooyin badan baa jira ka ma garanaysaa khiyaarta qiimaha badan leh oo shacabkii waxa weeye gobolka bari aad iyo aad bay u kacsan yihiin sababtuna waxa weeye maxaa ku ilaahday waa dekadii airportkii maxjaradii wax allaale ilaahay dhaqaalaha oo dhan baa la wareejiyay oo lagu wareejiyay imaaraad بغير شرعي وحوي ددكو way fahamsan yihiin waxan hadda waxa way illegal inay tahay waxa lagu wareejiyay maxaa ku leedahay hantida marka shacabkii waxa way maxaa ku leedahay daryeel iyo hantidoodii oo magaranaysa la bixiyay ayay aad iyo aad ay magaranaysa maxaa ku uga kacsan yihiin marka waxaynu weydiinaynay waxay ahayd caawa inaynu la wadaagno walaalaha kamida dalka laakiin dagaal baa inagu socdo hawada waa la gooyay may suurta gelin inaan magaranaysa si fiican aanu waxa weey maxaa ku leedahay waraysiga uu noo dhamaado laakiin inaga joogna dabcan fariintu way gaari doontaa dadka oo waxa weey inagu waxaan la hadlaynaa dadka shacabka dadka waxgaradka dadka waxa weey aqliga u saaxiibka dadka ayaan doonaynaa dareenkoodu in ay magaranaysaa hadda waxa weey runtii u baahan taageerada in la taageero kuwa ayaynu taageeraynaa marka waxaan soo qabanayaa magaranaysaa masar kaynaan baan soo qabanayaa insha Allah bismillaah karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيشار قرية ولا يا البرنامج كنا كلا باي كينا سودو وسعيد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ يوسف أدبك والسلام عليك يوم الصومالية بقول حانتك aad baan kaaga qaaday walaalo soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka caawa waxaan isdul taagaynaa waxa weey maxaa ku leedahay dabcan waxay ahayd inay barnaamijka nagala qayb qaataan dad reer runtii odayadii aynu ka daawanaynay magaranaysaa media social media qaar kamid ah dabcan laakiin way inoo bilaabatay oo way ka soo qayb galeen laakiin hawadii baa xumaatay oo way ugu go'ay dadka bacdina waa soo noqon kari waay baan u malaynayaa marka barnaamijkeena aynu sii wadaynaa waxa weeye inagu waajibkeena sii gudanaynaa insha Allah waxa weeye keenaano waxa jira waxa weeye dabcan maamulka Puntland waa maamul weyn oo hadda 20 sanadood waxa weeye dhowr iyo 20 sano jir ah dhowr iyo 20 sanana waxa weeye cabasho baa taagnayd inkastoo Soomaaliya oo dhan badii cabashadu ay ka jirtay laakiin haddana nabadgeliyo sida hadda Muqdisho oo kale iyo Kismaayo oo kale iyo conflict maxaa ku dhacay inside ayaa jiray laakiin waxa weeye meesha la yiraahdo Puntland waxay ahayd meel degan oo waxa weeye maxaa ku dhacay nabadgelyadoodu ay xasiloon tahay markastana waxa weeye horumarku waxa weeye curyaan buu ahaa dadkuna way cabanayeen waxa jiray shirkado waxa weeye ajnabi ah oo mar waxa weeye meesha soo galay oo saaran seer shirkadii la oran jirtay petrol baan baaraynaa iyo waxbaan qodaynaa iyo oo macaadinta gurata waxa jirta hadda in waxa weeye maxaa kula imaaraadkii waxa weeye maxaa kula dhulkii oo dhan laga wareejiyo waa inaga ka hadlayna odayaduna waa kuwii ka hadlayay marka maxaa kula maxaa waxay ku guuleysteen waxa weeye inay madax garasa dhawra iyagoo nabadgelyo ay meesha ka jirto inay madax dhawri iyana meesha u kala dambayso madaxda dhawrka inay wax isdoorin oo haba yaraatay wax isbedela aanay meesha imanin maxaynu oran karaa baa meesha ku jira
waa maasan tahay horta Somaliland Puntland waqti dheer bay jirtaa markii Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadda Muuse isku bedeleen laga soo bilaabo faro waxaan u maleynayaa systemka maanta jira marka la fiiriyo inay horta boqolkiiba boqol nabadgelyada xagga nabadgelyadu inay waqtiga ka fiicneed ba waqtiga Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadda Muuse ay aad u fiicneed sababo kale tan ma aha dadka bulshada guud ee gudaha ee reer Puntland dadku sharciga ay ka cabsan jireen waqtigaas nimankaas haysteen hadda sharciga Puntland wuxuu u shaqeeyaa inta haysata meesha iyo inta joogta laakiin bulshada uma shaqeeyo sababtuna waxay tahay waxyaabaha ka dhacaya ka dhaxdhacaya ba example kugu filan aragtida guud ee caamka ah waxa weey waxna waa wax ku dhaca dadka talada haya waxna waa wax shacabka ku dhaca marka sidee uga falceliyaan nimankani hadda talada haya waxa shacabka ku dhaca taasa marka loo baahan yahay in la ogaado shacabka inaan meeshan waxba dana aan loo hayn taasa cadaynaysa dumar baa la kufsanaya dad baa xaq darro lagu dilaya dad dhacaya waxaba yaraatee dadkii madaxda ahaa ee dadkaani lahaa weerna soo doortan cid soo doorataa ma jirin oo taas lafteeda oo beenahe kama falcelinayaan ama hadday xaq cadaalad iyo maxkamad noqotana kama hadlayaan ma dhiiri gelinayaan laamihii sharciga ma dhiiri oo hadday laamaha sharciga dhiiri geliyaan meeshuu sharci ka socdaa laamaha sharciga lagu dhiiri geliyaa sharcigu markaad dhiiri gelisay askariga ama maxkamadaha aakhirka aday kugu imaanaysaa ilaa adigii baa faraha kula jira sharci darree marka nimankii labadii madaxweyne ee Cabdiweli Gaas iyo ninkani Puntland way qaribeen marka xaqada dhabta laga hadlo aad bay u qaribeen waxay u qaribeen xiriirkii dawladii dhexe iyo bahalkii sheegay iyo maamulka Puntland way qaribeen oo wax saameyn kuma leh oo waxay kaga dhigtay xiriirkan u jirnay iyo ma iimaan karaan ayagoo bawar laga hayn waxay ka hadlayaan waxa fiican inaad saameyn leedahay midda kale to arrimihii gudaha Puntland dhexdeedana cadaaladii bay ka fogeeyeen oo musuqmaasuq hantidii oo la musuqmaasuqayo iyo dadkii oo xaq darro lagu sameeynayo oo haddana garab helay midda kale odayaasha la eedeynayo odayaashu ayaka weeyaba kuwa eedeysan odaygu Cabdiweli keenay ama Gaas keenay saddexna inta soo wada yiri mid dooro cadaalad buu ka shaqeeyay saddex buu soo kaxeeyay hadduu cadaalad og yahay markii hore hal mid soo wadan lahaa oran lahaa qofkan baa dalkii dadka u roona wado laakiin ari markaad suuqa soo keensato jar ariga ka soo xulato dhowr baad soo kaxaysanaysaa wixii laga gatan arag wixii lagu soo celiyana waxa weey nasiibka marka nin soo watay baad waxaad weydiinaysan cadaalada waxaad leeyihiin odayaasha qaldan odayaashu ma qaldaneen qaabkay wax ku iibsan lahaayeen iyo siday ku heli lahaayeen danaha ay leeyihiin bay ka shaqeynayeen laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyarada iyo shacabka reer Puntland inay maskaxda ka kaceen oo caqliga ka kaceen oo ay ogaadeen meeshani gurigan looga arrimiyahay Puntland inuusan ahayn guri Puntland oo yahay guri dad gaar ah leeyihiin reerkay doonba ha u dhasheen dowladda Puntland kulligood way ku dulmayeen ama ha ku badnaadeen ama ha ku yaraadeen ma sha Allah walaba saameyn buu ku leeyahay marka nimanka odayaasha la yiraahay waa fidno odayaasha ugu waaweyn oo salaadiinta loo yaqaaniyo boqorada markaad runta rabtid xaqiiqada dhabta ah waa taas sartuna meesha ka qoranta waxa weey waa base ma sha Allah waa meeshii basically waa aas ummadda waxa u ah oday dhaqameedka iyo culumada u ah haddii labadaas xumaadaan ummaddu mar walba way dumaysaa haddii kale waxa imaanayso kaliya la iskaga kicin karaa gacan awood leh inay timaado oo labadooda xakamaysa oo talada ka ilaalisa haddii labada talada laga ilaalinayo maamulku wuxuu u ekaanayaa maamul xoog meesha ku joogo oo kaliya taraysa marka Soomaalidu dad waxa weeye aad u qalafsan oo dhan walba aan sharciga jeclayn in sharciga lagu maamulo ama midka diinta islaamka ha noqdo ama midka madaniga caadiga ha noqdo oo bahal maamulka guud caadiga ah marka waxaan oran lahaa hadda odayaal baa lagu qaylinayaa hadda fiiri markuu madaxweyne xumaado mooshin baa laga keeni karaa xilka laga qaadi karaa waa la iska bedeli karaa Puntland qof may weyn qof dani ka wanaagsan ama ka hoggaan wanaagsan intaas oo dhan wax xitaa laga sheekeyn karo maahan lagama xitaa lama sheegi karo sababtu waxay tahay meeshan qarash baa ku baxay ninkii diyaar u ah qarashkii iyo faa'iidada inuu isdul saaro waxaas ka sheekay haddii kale intaad ka sheekeynayso reer Puntland iyo shacabku hadday doonayaan
labada albaab waa inay ka istaagaan inta boorar soo qaataan ku yidhahdaan albaabkan ooga bax kuma doonayno yaanu doonaynaa nagasta ninkaad soo dooranaysaan laakiin waa inayna oday u dirin puntland nabadgelyay haysataa maxay isku dooran laada waay puntland isku dooran laada lama qarxinayo tuuga ma jirto xaafad kasta maa santuuqeeda loo dhigo askarta laaga istaajiyo ma jabeeta xitaa masuqmaasuq ha dhaw xitaa qolaha ku shubato tan kaloo labaad ayaa looga sii gudbi karaa wixii laakiin puntland sababtay isku dooran laaday maxay tahay waa maamul intaasoo sano jiray xitaa goobaha haddaan la wada geyn karin inta la geyn kara waa in la doorto waxay ka fiicnaanaysaa saddex qaado hal laba ii soo celi saddex ka xulo laba saddex ka xulo mid ka xulo saddex mid ka xulo taasay ka fiican tahay dadku marka waa inay isku kalsoonaadaan waxaa loo baahan yahay shacabku in ay ogaadaan inay yihiin awoodda dalkan ayagu dalka inay ayagu leeyihiin hooyada iyo wiilka iyo gabadha iyo odagu waa inay aaminaan inay dalka ayagu leeyihiin 200 oo qof ma dhama waxa madaxtooyada garow ku jira taasoo milyan baanan ku nool lo ma ahidin idinku xawayaan ma ahidin ariga xariyaha lagu xareeyay in dadeera dhoofiyo ma ahidin in aadan baatiin ilaahay samaysto kuwaana idinka dhalay kuwa ka fiicanna idinka dhalay maamul wanaagsanna idinka samaysan kara laakiin intaad ka sugaysaan lagama yaabo inaad heshaan never wallahi siimaanina billahi wa tallahi wayna ka sii liidan doontaa hadday saa ku socoto ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله waxa way dadku danahooda ayagu dadku ha u kaceen waana ma hataa su'aal kale weydii aad kacdoonkii wuu socdaa laakiin hadda waxa way dabcan oo waxa way dhaqdhaqaaq baynu arkaynaa waxa way maxaan ku leedahay runtii aan is qurux badan oo aynaan mararka qaarkood ba filayn inkastoo dadka shacabka dareenkoodu uu mar walba qurux badnaa khayr Allah siiye laakiin dhiirani baynu arkaynaa hadda runtii dhiirani baynu arkaynaa laakiin waxa maqaala oo hadda la ii sheegay in la doonayo in la kala jajabiyo dadkii waxa way maxaa ku leedahay dhibanayaasha ahaa ee doonaya inay soo kacaan oo waxa way moosho ay ka hor yimaadaan waxa way maxaa ku leedahay boobkan iyo dhacakan waxa way lagu maartay maxaa ku leedahay magaranaysa ay imaaraadku ay magaranaysa lagu siiyay dhulkii iyo magaranaysa deegaamadii oo dhan waxa way in la kala jajabiyo marka maxaynu uga digi karaa maxaynu fariin aynu u diri karaa dadkaas laga yaabo maadaama dadku 30 sano ay iska burbursanayeen ku soco kala jajabinta laftigeeda su'aal kale taa horta sidee la isku kala jajabiyaa marka ummad la kala jajabinayo yaa loo soo maraa ilaa qof walba albaabka looga garaacay adigu talaal wareejimay dadka caafimaad ka shaqeeya ma ahide qof walba guriga albaabka tagay sidee marka doonayso inaad dad kala jajabiso yaa doonaysa inaad ka bilowdo waxaad ka bilaabaysaa odagii saddexda keenay midna ka dooro ku yiri Allah waa in shacabku u sheegaan marka wax kasta oo ay keenaan wax santuuq ka sokeeya ayagu ay leeyihiin oo gabar walba iyo wiil walba iyo oday walba intuu halka jidka soo maro waraaq ku rita wax ka sokeeya inaysan ku qancin taabay kaga gudbi karaan laakiin haddii la dad maqasir reer hebel waa la soo qanciyay reer hebel cidna ma soo tirin adeer macaan cidna uma tagi karto roob ma ahan dadkan bini'aadanka wax simi kara waxa jira nimcaadka ilaahay ama aafooyinka ilaahay baa simi kara dadka lama soo tirin lamana tiri koobin sheekada la dhaho reer hebel waa qanacsan yihiin waa been qof yar oo horjooga ah oo ayagu doorteen ay u maleynayeen inuu cadaalad u horseedayo ayaa darihiisa qaaska loo sheegaya tooda xanuunsan tooda dhiban tooda xaqdarrada ku xiran tooda maalkoodii laga dhacay midooda bahalkii sheegay la kufsaday intaas baan ku turjumayn baa la qancinaya barina TV-gu soo fadhiisanaya asagoo qoslaya waxaan ku leeyahay dhulkeena barwaaqa fadhida dekada ma ahan xitaa madaxtooyada dhinaca laga siiyo bahalkii imaaraadka ha marka reer Puntland nabad ay ku naaloodaan way haystaan dad u ilaaliyana way haystaan dani uma abuurin gaasna uma abuurin xaqada dhabta markay rabaan nabadan waxa u shaqeeyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaahay u naxariisto Allah u naxariisto iyo maamuladii odayaasha ay boqoradii ka dambeeyay sida daraadii kuwa maanta boqorada jooga iyo kuwa dhaqamada jooga dhaqanku ma tilmaami karee waa in aysan daba fariisan hadda ka bacdi waa inay jidadka ku lugeeyaan laakiin su'aalan ku weydiiyo haddii aan cadaalad jirin meesha haddii aan cadaalad jirin amni ma jiraya maya ma sii soconaya amniga Puntland wuu baabaayay amni Puntland miya amniya ما أساسي intaas qof baa lagu dilaa maalin kasta intaas qof baa lagu dilaa intaas saqiirkii baa lagu waa meel saqiirkii lagu sidaas way ku soco walaal ku soco magacii sharafkii bay xitaa ka dileen sharafkii iyo karaamadii baa xitaa maamulkii laga dilay meel caruur saqiiraha lagu kufsanayo gabdho 5 iyo 6 7 sano gaaray ee odayda qobo garweyn oo cirada loo soo qaban leeyahay saa kufsaday fadeexad ka weyn miyaa jirta adduunka ma jirto waxaasoo dhan waxa koos gareynaya marka waxa waa ninka leaders waa ninkan hogaaminaya nimankan hogaaminaya way
maxaaba la iskaga doodayaa way ku caddaatay isagaa sameeyey dembigan qoorta xaggee tiirka ku fuli sababtay cadaaladda uga hortaagayaan nimankan aysan u dhiiri gelinaynin maxkamadaha waxaa weeye ayagaa dembilayaal ah ayagaa hanti qaran qaba nin dembilaana nin dembilaa ku maqnayn waxyar sug nadiifay waxyar sug haye maasha allah maxaynu ugu baaqaynaa ninka la yiraahdo waxa weeye maxaa kula keenaano anigu reer Puntland waxaan u soo jeedin lahaa ammaankooda iyo cadaaladooda iyo horumarkooda gacantoodu ku jira hadday taa aaminaan way gaarayaan hadday aamini waayeen hadday aaminsan yihiin saddex ka xulo ka doontana sidaas bay ku jirayaan gabadhkiina wixii la doono lagu samaynayaa cid idinka haybaysanaysana male maanta waxay joogaan jaanas fiican bay haystaan meel fiican bay taagan yihiin waxay samayn karaan awood ay wax ku doortaan wax iskaga bedelaan bay leeyihiin waa inaysan u ogolaanin nimanka salaadiinta ee tuugada ee inta ku ilbaxay musuqmaasuqii iyo madax la shaqayskii aan ilaahay xitaa ummadda uga xishoonayn waa inay hor istaagaan waa inay yiraahdaan anaf is anaf anaga intaana way naga badan tahay aad iyo aad baad mahadsantahay dan haye niyow inaad balaad isaartay in kala maaqaana iyo inaad siyaasi tahay oo aan lagu soo geli karin waan ku qaban waaya ma garad aniga miyaa mise waa kaynaan ayo waa qofka la hadlaya aad u maqlay waa faalmo wadani weeye kaynaano maama faaduma hooy faaduma aad baan u salaamay eedaday aad baan kaaga qaaday salaanta waxay ku leedahay waan ku soo raadiyay laakiin waa ii soo geli waayay laynka okay aniga dib u fiirinaya wallahi ma fiirin laakiin xalay lafteedaan ba doonay waxaan ku yiri xanfirishman ku hayaa maraanu sheekaysanaysa qaatay meel ka wada hadlayna marka imay fahmin arrinkaas laftigiisu waxa inaan kala hadlo marka waan ka wada hadlaynaa markaanu ka baxno arrinkan aniga laftigay waxbaan arkay waan yaabay 2 daqiiqo shaqaan gelaya 2 daqiiqo siiya adinkoo raalli ku saaca horta kaynan aad baad u mahadsantahay saaxiibadna dadka la waqtin haye aad waayo walaalahay ku saaca faad salaam wiilku waqtigiisa waa qaatay ku socod dad kale waqti siinaya insha Allah ma sha Allah dhamaantii waa idin salaamaya sunbay u tahay waxa weeye hogaamiyayaashii hadda soo magacowdeen waa run ilaa hadda waxay qabsadeen malaha keenan I agree with him inuu macnaha maartay shacabka Soomaaliyeed Xasan Cabdi Caynaashi soo dhaw saaxiib Xasan Cabdi Caynaashi baan u jeedaa soo dhaw aad baan ku saacay baan u salaamaya walaalka ku saacay baan u salaamaya asagana marka waa run dhaxaltooyo buu ka tagay waxaana weeye haloo duceeyo in loo duceeyo waa adeerkay Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay oo naxariisto iyo odayaasha waaweyn ee maartay maxaa ku raday dhaqameeyadan hooso hadda adduunka haleynhayo kii gabar kufsada maartay dhahayo reer buu ka dhashay naga daayay waa naagay waxaas anu maxaa ku radaa ma dhahay rag maartay ruux hadda wadanka soo ilaaliyay Cabdullaahi hadana ilaalin ku jiro waxaana حضوري مارتي شهادooyinkooda uu ka soo qabateeyay marka dhibaatadu ku noqday shacabka Soomaaliyeed iyo dadka dhalinyarada soo baxay iyo maartay maxaa kala deegaanka dhamaa dawladda ayaaska aan maxaa kala qaraaqinayna dawladda markaa ku waawanay xarkahayo ayaan hore uga la socdo marka dambe kaba maqnayn in the same time maxaa kala waa cadaadinayna هذه الفاضمة وقتي تلاقي بعديها هيصار حسن عبد العين عشان صار 2 دقيقة أريد وكان بحيان دقيقة هي هري وعلى ويا مدرسة كذا يا شعب الصوماليين الشغل يسقط في كذا قاعدين وذاك الزمان قبل كذا كجرا هذا ويب سايت كجرا ورياشي ما صوب بندقة هي دبالدقة يا مارتي هورا نسود وين هي يسبدل حقوق له مركب ما أنت يسبدل حقوق لها صومالي كسقط سبيشال دليل يسبدل حقوق له وضعان وين isku wada xiran yihiin sida wariyayaal Allah la ii sheegeen waa idin hambalyeynaya halka ka sii wada kacdoonku adinku halkaan aad ka wadaan adiga Caynaash halka ka wadaan
iyo annagoo in kala qayb qaadanayno runtii meelo badan bay fakti garaysay waan idin hambalyeena waan idin salaamaya halkan ka wada salaamu calaykum waraxmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه هذا ما أحسنتها أنا في السوداء وحنا شغال كتيم مسوات كسعتها وسوي هو عاود طبعا ديال كيف ينوضنا ولا هل كيف ينكودنا وحنا لض مقرنا صدح لي دار بدلان سبد بدل شري وحوي معاكل هذا كانتو ذا أيين وحوي معاكل كهاد ليني iyo maxaa ku leedahay xagirdaamada iyo magaranaysaa dhibaatada ay ku hayaan dadkii iyo deegaankiiba marka ku soo dhawow waxa weeye xogaal baa tahay wax badan ku qarsoona ku soo dhawow canaashe aad horta idin salaamaya inagu ma intaynu waqti hayno naftiinu ku jirto ma joojin karayno mar hadduu qofku isxilqaamo arko qofku inaanu wax arkin baa wanaagsan laakiin hadduu wax arko ma aamusi karayo marka horta waxaynu u kalifasay inaanad waxba arkin baa wanaagsan ama waxaanad fahmin ama aanad aqoon u yeelanin baa wanaagsan marka horta sababtan aynu u qaylinayno meel walba uga hadlayna tan baa ka mid ah bila'aadankana inaad garanaysa mooyaane ninka xoolahunaa la odhan jiray berigii hore ninka dadka danta dadka dadweynaha nin baa ka shaqayn jiro labadii isdilaba uu u socdaali jiray meeshii colaadi ka timaado wuu carari jiray xoolihiisu way dayacmi jireen ninkaas maasha allah dabeetana waa xoolahunaa la odhan jiray kan adhigiisa yar iyo carruurtiisa ilaashadee aan dhaafine haddii halkaa lagu rogmanayo iyo wax kastaa dhacayaan soo xidhan jiray ooduu soo rogan jiray maxaa iga galay buu odhan jiray reerkeennu sooma nabad qabo adhigaygu ma marka weligeed horta bilaadanku kala lahaa waad ku mahadsan tahay dadkuna sidaasuu weligii kala ahaa tanina waa tii uun haddii colaad la soo sheego ama bahal la soo sheego ama qof masqaniino rag baa dee carari jiray oo u gurman jiray marka horta waa tii unoo miidiyadii gashay waa wardoonkii ama wargeyntii ama nabadayntii ama wax wanaag sheegistii horta aad baan idinku mahadnaqayaa runtii adiga iyo rag kale fara badan ba maasha allah adigaa mudan runtii buntland horta anigu in badan baan ka hadlay wax badan baan ayaynu ka hadalnay horaan u arkayay waan sheegay dhowr bilood horteed puntland waxaa ku soo socdaa in badan baad ogeydo aynu la talinay dadka laakiin waxaad moodaa dad badan ay fahmeen iminka xaaladda puntland taalla xaaladda iminka taalla berbera iyo hargeysa iyo puntland waa isku mid differano ay kala leeyihin ma jirto meeshan waqooyigana ceerigaaba iyo sanaagun bay soo gaari kari waayeen oo laga eryadaa oo kolba qolo tuuga laga eryaa imaaraadku xitaa ima kari waayeen waa dhigi ogaa laascaanood agteeda watii lagula lamay dayaaraday keeni jireen sawira oo 3 dayaaradood sawiraysaabay keeni jireen sidii loo toogtee loola dagaalaweyn ereyadeeda ilaa laascaanood inta u dhaxaysa sanaagna waa tii lagula dagaalamo iyaguna waa kari waayeen sanaag laakiin in la odhan jiray ilaa borco iyo inta berbera u dhaxaysa iyo hargeysa waxba lagagama meesha la yidhaahdo boosaaso iyo puntland ilaa xeebta bahashii eyl marka laga bilaabo beday yaa inta u dhaxaysa boosaaso waxba lagagama tegin qardho markaad in badan waxoogay xaggaa ka socoto dadkaa qardho iyo eriyadaas way ilaashadeen laakiin dhulka la xaalofiyey waxba lagaga tegin ayay sida xun loo wado ee imaaraadka iyo kamiliyaashooda in badan baynu ka hadalnay in badan marka waxaa jooga ciidan halkaas jooga oo la yidhaahdo waxay ilaaliyaan badaha iyo toororiiska laakiin waxaynu ognahay inay ku laayeen dhallinyaradii soo ogaatay dahabka iyo macdintay ka gurtaan waa tii markii dambe la dilay kuwa inama soo ogaaday waa tay laayeen cidi kama hadli karto mar horaan dhulka laga wareegay xitaa dadka joogaa joog ma odhan karaan shirkad baa jirtay magac lahaydoo ilaa diamond ka heshay buuraha xagga xeebta u rogan markaa horta meeshii ummadda soomaaliyeed macdanta ugu qaalisanay ugu jirta bay ahayd laakiin dadkan waa la xidhay waxaan leenahay reer puntland maanta idinla gudboon tahay inaad arrinka wax ka qabataan yani hadal waxba ma taro waa time ficilkaa la soo gaadhay yani quruun dhan oo dadkeedii iyo dalkeedii aad arkaysa siday yihiin shaqala'aanta
iyo tahriibka iyo silaca carruurteeda iyo dhallinyaradii jaamacadaha uga baxay xamar iyo tahriibka kala carara dhulkoodiina waa taan berigii kuu sheegayey aan kulahaa shirikadaasi ee wiiga keliya ayaa milyan iyo 500 oo kun ka sameeya macdanta halkaa ka guraan marka haddii aad wiigii ku dhufato 4 wiig waa 10 milyan ugu yaraan ama 8 milyan bal imise bishii shaqaale carruur u noqon lahayd ilaa 300 bay bishiiba ayaa waxa wax kasta ku borojeed kasta carruurtaas isku dubari lahayd iyo dhalinyaradaas isweydiintu waxa weeye maxaa dadku helay maxay sugayaan ما شاء الله qaata 4 ama 5 toban odayna $100 bay ka siiyaan boqolkii 9 shirkadahan baa qaata 10% baa laga siiyaa iyaga يعني معجزة haysataa waxa weeye ee maanta inagu yoorta war xitaa hadday konton ka qaadanayaan wuxuu baa dadka ka soo gaari lahaa inta ag joogta waxbaa ka soo gaari lahaa ay dhulka gashan bay shirkadahaas qaadanaya dekadii arkaya airportkii maanta yani ummadani wax ka dhaxaysayba sidaa waqooyiga ku wareejiyay marka dadka waqooyi waynu garan karnaa xaaladday ku jiraan laakiin puntland isweydiintu waxa weeye war maxaa dadkii ku dhacay waxay ahaan jireen dadku isku nooc maaha waxay ahaan jireen dad dowladnimada yaqaana dhulkooda ilaashada yani aan lagu gefi karin oo nin siyaasi aanu ku talax tegi karin sida marka waxaynu arkaynaa dadkii reer puntland in xaaladdu meel xun la marayso weliba area boosaaso meel xun bay xaaladdu la maraysaa gaalkacyo gidaar baa lagu xiray oo intuu ku wareejiyeen ba iskaga dhaqaaqa waa garowe area inta ay shaqaystaan waxay nagaga daran maalkii waxaan lagu xaraashayay haddii dalka la gelin lahaa cilmaynu qabneen haddaan idinka sheekeeyo researchkan berigii sameeyey jabuuti iyo hargeysa iyo imaaraad deni iyo faroole iyo 4 nin oo kale ilaa ina cumar cabdirashiid ayaaba meel xeebta ah iyo waaweyn iyo dhul ka xidhay oo dowr xoogay shaqaa laga helay ilaa 20 milyan layidhi wuu gelinaya kenya waad aragtay meesha la yidhaha Mombasa in cabdirashiid magaalo dhan buu ka dhisanaya ina cumar cabdirashiid cali sharmaarki magaalo dhan Mombasa inaad maqashin mooyaan ما مغلي ولا وركاغ ما شاء الله 9 milyan wax lagu qiyaasay waa magaalo dhan waa xaafadan marka waxa mucjiso oo kale war wixii halkan ummadan lagu xaraashay xitaa dhulka may gelin Puntland سبحان الله Djibouti hargeysa iyo imaaraad iyo Kenya la gashada yani waa mucjisooyinka maanta aynu hayno way balse maxaa dhalinyaradii ku dhacay isweydiin war maxaa dhalinyaradii ku dhacay waxay ka bidood dideen inankii imaaraadka iyo shirkadoodii halkan bay u soo tagtay dhulkoodii isna wuu tahriibay isla kiiba kaliya kala baxayo kaliya keensanaya سبحان الله waxna kalluun baa cunay waa mucjisooyin maanta aynu arkayno aynaan garanayn dadka waxa ku dhacay dhalinyaradii wax ku dhacay kun inan oo keliya Puntland hadday caawa dhacaan ma joogayaan raggani cidima joogaysa meeshan kamberina ma joogayo tuugina ma joogayso war 500 oo inan miyaynu ka weynay maanta Puntland oo dhiig iyo dadnimo iyo damiir oo xitaa naftooda u naxiya oo ka qabsada shirkadaha tugaada kala wareega oo iyagu keensada qaar Turkiga haddaynu wax kala weynay ma 500 oo inan baynu weynay oo Puntland oo dhan ka socda oo macdanta iyo dahabka la guranay intay shirkadaha ka eryadaan iyagu keensada qaar Turkiga oo multi billion ku noqday miyaynu weynay ma 300 oo inan baynu la يعني مدي ما قرنا وحبا ينو دحاي برسه إلهي waxaanu leenahay ilaahay waxaan qaado dadka waxaan leeyahay war nimayo xaaladu sidani ma sidii dadka bili aadanka ku noolaaye waqti bay leedahay waqtigii waa la gaaray maanta leeyahay xaaladda waxa laga bedelo هذه حسنو aad baad u mahadsan tahay anigu dhinac markaan ka eego waa sax weeye still waxa weeye we have seen many difficulties waxaan aragnaa yani dhibaatooyin aad iyo aad u badan baynu weli aragnaa laakiin marka aynu waxa weeye fiirino hadda gobollada waqooyi iyo gobollada bariba mar hore xilli ma hore aynu waxa weeye aynu magaranaysaa barnaamijyada aynu wadaagi jiray meeshii ay wax joogeen ma joogno meel ka fiican baan joognaa maanta
hargeysa layga soo wacayaa boosaasaa layga soo wacayaa dadkii garowa lagaa soo wacayaa dadkii waa isku dareen qof kastaaba waxa uu doonayaa soomaalinimuu raadinayaa laakiin wax yar baa u dhiman inay dadku isu tagaan oo ay waxa weeye mowqifkooda caddeeyaan oo ay waxa weeye diidaan waxan ayaa u dhiman iyadana waxaan isleenahay waxa weeye maxaa kula waqti yar baa inaga xiga inaynu cagaha sii adkayno insha allah halkankana aynu kusii dhiirano ayaynu u baahannahay una ducayno dadka marka odayada hadda oday baa ila soo xidhiidhay maxaa kula boosaaso oo odayada aynu ku aragnay social media ka mid ah wuxuu yidhi hawshu way socotaa shir caama ayaan qabanaynaa oo degdega oo waxa weeye beelaha oo dhan ay isugu imanayaan ee beriga dega go'aan baanu ku gaadhaynaa laakiin waxa jira waxa weeye maxaa kula furfur baa nalagu hayaa oo qaar badan baa la isku dayayaa in la laalusho waxa weeye qaar wuxuu ii sheegay iyaga jifadooda markaas inay laga laalushay waa soo celinay buu yidhi marka waxa weeye NGO-yadaas ayaacay oo lacagtii baa xaaraanta baa soconaysa maxaynu fariin u diri karaa maxaa kula xasano waxaan leenahay horta odayaal marka quruun la rogayo waxa laga soo galaa xagga talada laga soo galaa kuwa dhaqanka u haya iyo kuwa siyaasadda u haya kuwa diinta u haya waa saddexda dadka hogaamiya bilaadanka dhaqanka waliba Afrika marka wixii tribes iyo carab haddii saddexda xanuunka ku dhaco ummadda revolutionary wax yimaada mooyaane si looga dulqaadi karaa way adag tahay haddii intaa waliba cadow u raaco haddii waliba uu raaco maafiya u raacdo haddii ay xaraashi dalkooda u raacdo yani iyaduna waa dhibaato kale lacag baa lala dul taagay balse waxaan kuu sheegayaan u sheegaya dadka war maanta maalintii odaygu talinaya 30 sannadood baa daawanayseen dhalinyaro oo caaqil iyo suldaan suldaanku wuxuu hoos galay mid siyaasi ah siyaasiina wuxuu hoos galay carab iyo afrika hoos galay iyo dulli iyo tuug kambaniyaal tuug oo maafiya adduunka maafiyadii adduunka ka dilaacday baa dalkeennii maanta ayaa wuxuu noqotay hoobka keliya ay isugu yimaadeen waa saddexdaa jaro halkeebaa dadku kaga imanayaan sidee yeelayaan mudaharaad baan maqlayay maanta inan bashiir la yidhaaho ila soo hadloo yidhi mudaharaad yaanu qabanqaabinaynaa boosaaso area waad qaylqaylin kartaa wayna barteen suuqaad mari kartaa halkaa intay daaqadda kaa daawadaan bay odhanayaan markaad daashaan guryaha ku xarooda casho taga halkaasay ku dhammaatay haddaan istaraatadi jirin oo urur dhalinyaro oo revolutionary wax la yidhaaha aanu meesha dhalinyaraa bedeshaa sidii aswa kale oo day waxba may weydiinin wada waxay ahaan 20 jir iyo 18 jir oday qaashu way joogtay waayo waxay garanayaan inaanay waxaan garanaynin odayaashu waxay ka qaadan jireen gumaysi bay ka qaadan jireen mushaar siin jiray ninka reerkooda la yidhaah soo qaba ayuu dabageli jiray oo tegi jiray miyigu soo qaban jiray marka weligeed adduunkan aynu arkaynay war waxa wax bedela waa dhalinyaro uma tacliin iyadoo xoolaha ha lahaadaan ama mid magaaladan iskuuqa lahaadaan adduunka wax bedela waa maanta ka filimayno oday waxba ka filimayno weligaana ha ka filin oday waxba ha ka filin waayo marka uu ninku 60 ka gaaro markuu gaaro hadduu doonana miyarayso guri yar iyo gaari yar iyo meel 100 laga siiyo uu ku faataxaysto jimcaha oo kaga soo sheekeeyo intaas weeye wuxuu odhanayaa aniga noloshayda isaga waxba kama gelin waxa dambe mentality ummadda adduunka oo dhan ee sababaha dadku markay dhexda dhaafaan aan loo weydiin arrin loo weydiinin waatan waynaga weyn adduunyada kale system baa hagaya oo ninka saddex kastuu yahay maanta Donald Trump system baa haya laakiin waa adiga arkay in Ingiriiska kii maraykanka impeachment lagu samaynayo maanta waayo inta waxay teerigaray inay sharciga ka gudbaan bini'aadanka waxa qabtaa waa dhalinyaro iyaga dhalinyaradii baa ahayd innaga ma jiraan waxa maanta lagu leeyahay caaqil iyo sulda siyaasiga iyaga la odhanaya war musabixi ragoraya siyaasigeena ama madaxweyneena daaradii caruurtana wuu boobaya iyo tigooyinkii agoonta ayuu boobaya nin kaga boobaya ayaa maanta waa noo maray caaqil $150 la siiyo oo isagu wax kala garanayn tacliin male waxba male intaasay noloshiisa ku koobnayd inuu helo ayaa wuxuu kugu odhanaya kuwa waqooyiga oo kale matalan waa kuna cadan markaadaas la doonaysa inaan qaxo guri yarna waa haysa gaadina waa haysa $150 waxaa u siiya cadaalad darrada inaan dadka u hayo aniga noloshaydu waa intan inaan adeer wax yar baa ii haray
kuwa yaryar hadday doonayaan ha iska bedelaan nolosha laga xumay marka dadka wax le war ha eegin oday weligeed adduunyadani ma eeginin da'a iyo caaqil iyo suudaantoona siyaasna la eego war ururada dhalinyarada war gacantiina ku qaata sharciga gacantiina kula wareega maamul iyo baawarka cid waxba idin dhigi mayso ilaa idin turi maayo ama taariifka dhamaada ama beerka halka baxo ama kalluun haydan cuno noloshoodii oo dhan inta carruurta laga dhigay hoob waxa looga dhigay yaa u haya ee midi gowraca u marinaya waa odaygana ay eeganayaan caaqilkii suudaanka sheeganayo weeye ninka midi gowraca carruurtan ugu haya ee aanay dhaafi karayn waa kan haddii ay weydiiyaan oday wax oo aad odayba wax weydiiso yani nolol kuma taalo dhalinyaro oday wax weydiiyo futurekoodii iyo noloshoodii arkayaan oo xabaan lagu gurayo inay weydiiyaan waa mamnuuc marka waxa leeyahay wax weydiiyaan waxba weydiinina ka tashada dhalinyarada ka tashada aad baan idiin salaamayaa maanta waxaan u baahanay dhalinyaraynu u baahanay aad iyo aad baan idiin salaamay dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantahay allah ku barakeeyo xasan cabdi caynaashe insha allah bismillahi karim waa sidaad u sheegtay nebiga wixii raacay waxay ahayd dhalinyaray ahaayeen waxaa sidaas xaqiiq weeye waxa weeye ama diin ha noqoto ama maxaa ku dhahday revolution kale ha noqoto waxa isbedelka raadiya waxa weeye maxaa ku dhahday waa dhalinyaro ilaahay subxaana wa tacaala dhalinyarada magaranaysa ha fahamsiiyo doorkooda aad iyo aad baan kuu salaamaya xasan aad iyo aad maasha allah waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay adigaa badan aad buu mahadsan yahay walaalkeen waan soo gabagabeynayaa barnaamijka insha allah bismillahi karim abu aadan waxaan filayaa talow ninkaasi amuu yahay ninka odayga ahaa ee aan wada joognay aad buu mahadsan yahay xasan cabdi caynaashe allah barakeeyo waa sidaa u sheegay waxa weeye dhalinyaro kaca oo waxa weeye qaata waxa weeye mustaqbalkiina odayadii way gaboobeen waxa weeye 60 uu gaaro 60 jir la jecelo yaanu kugu dilin bay Soomaalidu oran jirtay marka insha allah bismillahi karim waxaynu u baahanahay inay dhalinyaradu kacaan inaynu doorkeena qaadano inaynu waxa weeye odayadan laftoodana qaar wanaagsan baa jira insha allah qaar wanaagsan baa jira kuwa wanaagsan waxa weeye aqliga u saaxifayo leh waxa weeye abubakar laftiisu waxa weeye oday buu ahaa 40 jir laakiin dhalinyaro ahaa nabiga iyo maxaa ku dhaha 40 jir kuwa iska dhalinyaro marka waxa weeye kullay midmirka waxa weeye magaranaysa quality-ga leh aynu waxa weeye maxaa ku dhahan leenahay waxa weeye doorkiina qaata oo idinkuna dadkiina badbaadiya waxa weeye dhalinyaradana waxaan leenahay xasan cabdi caynaashe waa idinla hadlay dhalinyaro ka kaca meesha waxa weeye maxaa ku leedahay nimankan dhiiggiina shaqaya waxa weeye maxaa ku leedahay iska qabta oo sharaftiina iyo karaamadiina iyo maxaa ku leedahay khayraadkiina badbaadsada dalkiina iyo diintiina iyo maxaa ku leedahay magaranaysa dignitygiina badbaadiya aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiinba waxaan idin leeyahay aadan cabdi bal haddaan fiiriya aadan cabdo kamaradaadu ma fura aadan cabdi baan u jeedaa kamaradaadu ma fura saaxiib kamaradaadu ma fura aadan cabdiyow aadan cabdi waan soo qaban lahaa aad iyo aad baan idin wada salaamaya walaalayaal barnaamijka insha allah waan soo gabagabaynaynaa intaasaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan leenahay guul iyo gabadnimo waa intaas maxamed cabdullaahi soo dhawow adeer waxaynu leenahay insha allah bismillahi kariim ilaahay subxaana wa tacaala sharafteenii iyo karaamadeenii iyo ciskeenii waxa weeye allah inoo soo celiyo runtii waynu ognahay walaalayaal dalkan burburkiisii wixii laga maray intii dhibaato dhacday intii u dhimatay intii u dhaawacantay intii magaranaysa maxaa ku leedahay dhufaysyada u gashay intii waxa weeye maxaa ku waynu la soconaa haddii aynaan marka aynaan waxa weeye doorkeena aynaan qaadan isbedelka iyo horumarka iyo barwaaqada aynu doonayno lafteedu waxay u baahan tahay waxa weeye sidaas si lamida ayay u baahan tahay waxay u baahan tahay in aynu waxa weeye maxaa ku leedahay aynu nafta bixino oo maalka bixino oo waqtiga bixino haddii kale ma aynu helayno waxa aynu doonayno waxa aynu jecel lahay ma aynu helayno saa darteed waa inaynu dhiirano insha allah bismillahi kariim dhalinyaro marka odayadu idin kicinayaan qabyaalada laydin kicinayo ee qabiilka la isugu dikindirayaba waxaad tihiin geesiyaal diyaar baad u tihiin inaad dhimataan laba reer oo jifo oo walaala haddii ay hadda wax dhex maraan hubkaa lala soo wada yaacayaa waxa weeye waad yaabaysaa waxa weeye dhalinyaro orodka ka baxaya dhalinyarada
وحوي أي تهاي وحوي إن دلكينا يا محاكل هذا شرفتينا إن بدباستان وحيدين كباهن إن تسكع لسان نكن ديجي نعبيا وحوي دولكين يبسنيا وحوي الشيشيها مقرن سمحا كل هذا وشقينيا وحوي قرن ماضي ومضى الصمد دونيا إن أنا وحوي دمانتين بالشريتان كان الله دقالميا شريتان كان النك الله دقال خاطر سودو نك ضد كان شريتان كان الله دقال وايو ولا ليال وحوي محاكل هذا divide and rule divide mar haddaad maqasho waxa weeye dadka in la kala qaybiyo oo la kala kaxeeyo macnaheedu waxa weeye dadkaasi inay baabaan allah subxaana watacaala wuu inoo sheegay waxa weeye allah subxaana watacaala wuxuu yidhahayna iskhilaafina haddii aad iskhilaaftaan waxa weeye maxaa ku leedahay waad kala tegaysaan haddaad kala tagtaanna waad baaba'aysaan سعيد عبد الله الدني يا محاك ولا ذي أنت الله شقيسا وحي كشقين يا أحمد مذوبي يا عيد كالسؤال لفكرة وحي كشقين يا بابا يا دبرقاء ومدى الصوماليين وأيو ومدى هدي إخوة ذا يا قوة ذا يا محاك ولا ذي مقرس على كلا جيو والله كلا قيبيو خلاص وي عادوا كذا عنايا وحوي صدح دي دويبة ينقر بينه نقر هنا مركا وحنوبة هنا وحكسا وحكسا أو وحوي محاكل عينه أوضع عينه بحكره وعينه كبحنا دلنا وحوي بدبادة وحوي شريتانك جنسي كان صوماليا شريتانك جنسي كان صوماليا ولا ليال وادبر قابو كسعلا سببت وحوي وحدين شيء مجتمعي صوماليا وحعدو كوا عدو ديلي مالين كستا وحد دقال كسو قاضية إلا شن عدو every day مالين كستا أو وابريو ساعد كستا وحد دقال كل شرش لح عدو با كل شرش لح عدو مثل تدبع عدوي عدو كواد وإبليس وي وشيطان كعدو إلهي نوشاقي بلا دوفرس وأن دونين إنينو أدون كن يا آخرتونا مدنا أينو دادمينو كوب ليبانا كوب هل كوب أو ليبانا إنه الدنيا آخرتنا دادمينه وحوي تكله وحوي وحيابه استعماله أي كم تاي وحوي قبيالة ده وحكا خاطر سن قبيالة دقات كبهل كقات كلا يراه بهل كقات كلا يراه أو أبوره بيرت منها مقرنة بيها وقبيالة ده كسر بحضه وبهل كقات كلا يراه ديلي مالين والبا إنه صقل ديار ده الله ينوجو كانوا وحوي ديار ده العكتنا وحوي محاكل الله ينق الله عليه وحي الشلين كي إنه سوقل اللي هبا إنه محاكل أودرنا محاكل كينيا يوتوبيا وحوي محاكل هذا والله قلب كلا صدح هذا وحوي محاكل هذا وقبيالة ده ما يصدح إبليس شيطانك أو حوي وسواس خناس إنه آخرين يا أو حوي كلا غيبين يا ولا ليهم منو قفوا المقفك كلا ومقرنة الشركة ومارت محاكل كتصيا وحوي وغادكي وقبيالدي وقبلها ودني يا أحمد مذوبة يا موسى وقبل يا شقرني قوي يجونا وحوي وحاي ربان وحوي وشيادين يسوي ولا ليال وشيادين ويسي وحكشر كوان كلا وشقينا يا إيجا مقرنة إيدا وحوي أي عدة ربان يكوك عينيا وحوي محاكل وحكم إذا قحا وحوي قفك الله لقفك مالير وحير هلي ودون يمالو كبح ذلك وعدو يستغنى وحكلوشر ولا ليال عدوغا وحكله وحوي محاكل عدوغا dadka weerarka ku ah waxa dekedeeni iyo badeeni iyo maxaa kula barigeeniba doonaya inuu qabsado ee shisheeyaha aynu arkayno oo aan inaga gabanayba waxaynu arkaynay gorgoro waxa hadda waxa doonaya dadka inay gurtaan caruurti guranaya bala daverso sidaas lamida sida waraabaha iyo gorgorka iyo maxaa kula bahalaha horarka ee libaaxyada sidaas si ka daran ayay imaaraadka iyo maxaa kula Kenya ay muganasa weerar noogu yihiin bala daversada marka every second وحوي فرصة ما بحنايا هل second فرصة ما بيردرينيا مركا adigu xagaa joogtaaniyo Soomaaliyeed gabadhii ay Soomaaliyeed xagaa joogtaa waxaweye cimriga qofka Soomaaliga jiritaanka cimriga magaca Soomaaliga ay aad buu u yaryahay aad buu gaamay waxay tahay inaynu cimrigan badbaadino walaalayaal cimrigan inaan dhamaanteen baan u soo wada jeensano sidii aynu cimrigan gaaban aynu u daba qaban lahayn cimrigan gaaban waxaynu ku daba qaban karaa waxa weeye oo kaliya ay dawadiisu tahay waa qaranimo way dawadiisu waa qaranimo waa in system la helo ummadan u adeega oo waxa weeye maxaa ku leedahay baahideeda wuxuu ka dabooli kara wayn la helaa haddaan system la helin magaca Soomaaliga wuu ku daayay am sure warkaas iga qoraaniga sababtu tahay inta hadda waalan ee magarasa silsiladu ku xiran yihiin inta waxa weeye maxaa ku leedahay aan waxa weeye maxaa ku leedahay aan waxa weeye maxaa ku leedahay dana jirin
waxa weeye noloshii ka dhaca qaadka unu fadhiya inta waxa weeye nimanka shadaadiinta ay ku shaqaystaan ee shil $100 ma garanaysa maxaa kula adoomada ugu ah inta waxa weeye maxaa kula shisheeye kalkaalka ay waxa weeye cadowga inagu soo hogaaminaysa waxaas oo dhan waxa weeye waa wax socda weeye waa saacad ordaysa weeye waxa iman doonta waxa weeye haddii dadkan oday qaylinaya ee hadda qarannimadii hadda maxaa kula xasan cabdi caynaashe iyo aniga iyo waxaanu ku qaylinayna waxaanu nahay dad qarannimo soo arkay laakiin marka la gaadho generationka waxa weeye kale waxa weeye generationkii hadda ku dhashay waxa weeye maxaa ku dhahdaa dowlad la'aanta marka ay iyagu aabayaan noqdaan oo totally wax sawira aanay ka haysan qarannimo iyo maxaa ku dhahdaa system dawli ah dad waxayba moodayaanba dalkuba weligan baynaan sida soo kuway dhalaan maxay noqonayaan waxay noqonayaan dad u haysta weligoodba dadka maganaysa dadkan inaanay noloshoodaba dad jira inaanay ahayn waxaa jiray walaalayaan wiilaa dhalay oo yar ayaa maxaa ku dhahay isagoo magaraysa 14 jira ayaa waxaan geeyey Soomaaliya markaan geeyey waan kusoo gabagabeynay qisadaas kusoo gabeynay Soomaaliya markaan geeyey ayaan anagoo magaalada Hargeysa anagoo joognaa ayaan waxaan ku yiri aba magaaladan intaanad iman maxaad ka aaminsanayd baldo firsada wiilka wuxuu ugu yiri waxaan aaminsanaa aba meeshan dadka Soomaaliga ah inaanay totally guri haba yaraatee daar ah iyo baabuur iyo wado midna inaanay lahayn inay duurka inay waxa weeye ku nool yihiin kaymaha waxa weeye maxaa ku dhahay sida daayeerka oo kale inay u nool yihiin la doo firsada because waa loo sheegay waa lagu akhri waa loo sheegay waa laga dhaadhici sawirada waxa weeye markay caruurteen waxa la tusaa marka westernka jooga inta ugu xun baa Afrika laga tusaa la doo firso marka waxa weeye ilmihiisu muxuu noqonayaa walaalayaal ilmihiisu wuxuu noqonayaa qof rumaysan oo aaminsan oo aanad ka dhaadhicin karin qarannimo Soomaaliya qaran ahaan jirtay kama dhaadhicinis marka waxaynu u baahannahay Soomaaliyay waxa weeye gabadha qiimaha badan ee habeen iyo maalin qaylinaysa ee u soo jeeda qarannimada ee la dagaalamaysa qabqabayaasha ashar baad ka helaysaa Ilaahay baad ugu dhawaanaysaa ninka qaylinaya sidaas la mid ah ashar baad ka helaysaa Ilaahay baad ugu niyeyso waxaad niyeysataa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ashar kugu siiyo camalkan in ashar lagugu siiyo niyeyso wallahi waxa weeye maxaa kale biidni Ilaahi kariim jannaad ku mudanaysaa janno sare jannatu firdawsa ayaa la Ilaahay kugu irsaaqaya haddii aad u niyeysato camalkan waxa weeye aad u barax tirto inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaato sababtu tahay ummad muslimiina oo helu karama oo helu sharafa ayaad badbaadinaysaa gabadhii xumaatay walaalayaal gabadhii xumaatay waxa weeye reer bani Israa'iil maxaa Ilaahay jannada ku geliyay bay waxa weeye maxaa ku dhahdaa ay biyo siisay ma araadan bay aragtay markaasay biyo u soo qaaday gacanteeda iyo kabaheeda mooyo waxay ugu soo qaadeen ayay kaba biyo ay ku waraabsay jannay ku mudatay mid kale waxay ciqaabtay bisad bay ciqaabtay oo ay cadanaar ku gashay Saciid Cabdullaahi Dani iyo dadkani imisa boqol oo kun imisa milyan ayay ciqaabayaan nolosha ku ciqaabayaan walaalayaal oo ay iyagu waxa weeye ay ku dulnooliyeen oo dhiigooda iyo dhacaankooda ay cabayaan oo ay dalkooda waxa weeye baabi'inayaan imisa milyan Dani iyo Axmed Madoobe waxa weeye maxaa ku dhahdaa waa ahlu naar haddii aanay toobad keenin oo Ilaahay u soo noqon waxa weeye waa khatar weeye balado firsada waxaan u baahannahay waxa weeye inaynan ka hibaysan inaynan u joojin dhammaan qof kasta oo Soomaaliyeed waxa weeye qof kasta oo Soomaaliyeed waxa waajib ku ah inuu u istaago dalkan iyo dadkan sidii aynu u daba qaban lahayn oo badbaadin lahayn fursadu maanta waxa weeye hal maalin bay joogtaa chanisku waxa weeye maanta ayuu inala gudboon yahay waxa weeye waxaynu haysanaa dad aynu waxa weeye aynu oran karo waxa weeye maxaa ku dhahday waxa magaranaysa maxaa ku waxba shacab ummadda Soomaaliyeed wadooyinkii hore ahayn jirtay wada ka duwan bayna qaadsiinayaan waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waligay waxaan idin sheegay anigu wadaad baan ahaa waligay waxaan ololayn jiray oo aan jeclaa in shariicada islaamka la isku xukumo laakiin maanta waxaan aaminsanahay shariicadii inay halkan gashay in shariicada la isku xukumo halkan inay gashay sababtu waxa weeye waynu diidnay kitaabkii waynu diidnay sunnadii nabiga waynu diidnay culimadeeni waynu diidnay maxaynu u baahanahay marka badalku waxa weeye inaan system helo war Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabka wuxuu inoogu soo dejiyay oo kitaabka iyo sunnadu ayna leeyihiin waa nidaam la raaco oo waxa weeye la isku maamulo oo adduun iyo aakhiraba lagu liibaano waynu diidnay oo maxaa kula waxaan ma u baahnin balado firsada waxaynu u baahannahay war balkan kale ee waxa weeye aqligeena waxaynu inagu isu geegeynay ee aynu nidhi waxa weeye waxaan qodobaysanaynaa war waxa kan iyada lafteedu waa badbaado oo haddaynu ku badbaadno jinsigan qofkan bini aadanka ee muslimka ah haddii uu badbaado oo caafimaad helo oo waxa weeye biyo helo
oo waxa weye waxbarasho helo oo uu sii jiro oo sharaf yeesho oo bini aadan ka maarmo walaalayaal waa cibaado iyada lafteedu qofkan ilaahay subxaana watacaala waa cibaado waynagii eyga soo maray iyo bisada aan soo maray laakiin qofkani waa muslim ilaahay buu magaraysaa rumaysan yahay waxa weeye laa ilaha illa allah buu leeyahay walow kaan hadduu doon caasib ha ahaado hadduu doon caasib ha ahaado waxa weeye ilaahay baan ugu dhowaanaynaa ilaahay baan ugu jeclaanaya waxaan leenahay dadka reer puntland ee isbedel doonka waxa weeye maxaa ku dhahday gobolka bari waxaan leenahay dhaqaaqa aad samayseen dhaqdhaqaaqyada aad wadaan waxa weeye jasaakumullahu khayr ilaahay baad ugu dhowaanaysaan waxa weeye waa waajib idin saaran difaaca dalkiina difaaca sharaftiina difaaca karaamadiina difaaca waxa weeye dhulkiina difaaca khayraadkiina difaacda waxa weeye yaan laydin kala qaybinin yaan laydin kala qoqobin yaan laydin kala gurin waxa weeye maxaa ku dhahday yaan shilin waxa weeye magaraysa imaaraadku soo diray oo doonayo inuu ku xalaalaysto dhulkiina iyo khayraadkiina yaan maxaa ku dhaha laydinku kala qaybinin waa inaad meel uga soo wada jeensataan waa inaad waxa weeye dalkiina waxa weye maxaa ku dhaha aad kacdaan kacdoon shacab oo waxa weeye maxaa ku dhaha gobolka bari iyo gobolka waxa weeye nugaal iyo gobolka karkaar iyo gobolka sanaag iyo gobolada magaraysa maxaa ku dhaha dhammaan waxa weeye puntland oo dhan iyo degmooyinka bari dhammaantiin waxaan leenahay doorkiina wada qaata doorkiina wada qaata oo dowladnimo raasha doorkiina wada qaata oo dowladnimo raasha walaalayaal dowladdii waan haysanaa aan isgarab taagno dowladiid oo dhanna waa inaan soo qabanno aad iyo aad baan idin wada salaamaya jasaakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum aad iyo aad baan khatra kuu salaamaya walaalo waqtiga cidhiidhigu ahaa jasaakum allahu khayr allah ku xiftiyo adduuniya aakhiraba adiga ubadka ehelka waxa weye dhammaan allah idin xiftiyo ummadda soomaaliyeedna guud ahaan allah xiftiyo waxaan leenahay wixii dembi aynu ku sheegnay allah inaga cafiyo waxa weeye wixii ajarana ilaahay subxana watacaala inoo aqbalo waxaan ilaahay baynu ugu dhowaanaynaa habeen iyo maalin waxaan usoo jeednaa in ilaahay subxana watacaala aan ku raali gelino dad muslimiina oo helu karama oo dumara oo caruura oo waayeel oo ciroola ah oo waxa weeye maxaa kula ayaan badbaadinayna badbaadadoodi baan ka shaqaynaynaa walaal waa diin walaal waxa weeye maxaa kula waa waajib ina saaran ilaahay subxana watacaala hayna wada guuleeyo wasala allahu caleyh wacala alihi wasaxbi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu